halkan waa magaalada xuduudeeda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya tog wajaale waxaana maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dhagax dhigayo dhismaha bridge-ka isku xidha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya tog wajaale waxaana munaasabada dhagax dhigaas ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedka Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland barasaabka gobolka Gabiley maayarka magaalada ganacsiyeedka degmada tog wajaale halka dhinaca Itoobiya ay ka soo qayb galeen wasiirka madaxtooyada ee dowladda deegaanka Soomaalida wasiirka shaqada iyo xirfadaha wasiirka jidadka ee dalxiiska iyo sidoo kale safiirka dalka Sweden iyo sidoo kale maayarka degmada tog wajaale iyo maayarkuxinka degmada tog wajaale ee dhinaca Itoobiya mudan iyo mad sharaf tiro badan ayaa ka soo qayb gashay munaasabadaasi maanta lagu dhagax dhigay dhismaha mashruuca bridge-ka isku xidhaya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya tog wajaale waxaana mashruucan hirgelinaya shirkadda Trademark sidoo kale halkaas goobjoog ka cuqaal saadin waxgarad iyo mudan iyo mad sharaf kale waxaana hadalladii halkaas laga jeediyay ka mid ahaa mudan ee marweyn maanta waxaa noo tahay maalin weyn oo aan isugu imanimid dhismaha buundada aynu maanta fadhino aynu soo aragnay buundadaasi waxay isku xidhaysaa labada magaalo iyada oo wax badan ka qaban doonta dhinaca ganacsiga isku socodka bulshada iyo bulshada xuduudda ku nool ay wax badan u tiri doonto haddii la dhahdo saan ogsoonahay wajaale waa hal magaalo oo laba dal ka kooban magaaladaasi bulshadu isku talowga iyo isku socodkuba waxay u adeegsadaan xilliyada roobaadka weliba khaasatan waxay u adeegsadaan buundaday adeegsadaan markaasi haddaba buundadaas marka la dhammaystiro waxaan aaminsanahay waxay wax badan ka bedeli doontaa arrintii dhaqan dhaqaale ee dalka waxay wax badan ka bedeli doontaa isku socodka bulshada waxay wax badan ka bedeli doontaa xidhiidhka labada dal si guud farxad weyn bay maanta ii tahay ka guddoomiye ahaan in aynu dhagax dhigno dibudhiska bridge-ka degmada tog wajaale oo muddo badan hawl badan iyo juhdi badan la soo geliyey marka hore dhammaantiin waxaan isku soo dhawaynaynaa gacmo furan qalbi furan magaaladiinnii ku soo dhowaada bacda soo dhoweyn horumar bay u tahay labada magaalo ee tog wajaale oo ah hal magaalo sida uu maayarku sheegay iyo dad walaalo ah laba dal oo walaalo ah oo iska kaashanaya horumarka iyo horumarinta bulshadooda labada dhinacba maanta waxa aynu ka bogsanaynaa dhibaatooyinkii hore u jiray oo aynu heli doono bridge leh 4 tunnel oo min 4 mitir square taasoo ay macnaheedu tahay mugga biyaha maraya togga in ay si habsamiya u mari doonaan oo wax fatahaada iyo wax nibaada aanay samayn doonin bridge-kana uu noqon doono mid la munaafacadsado waqti badan oo tayadiisu wanaagsan tahay waxaanu marka hore u mahadnaqaynaa hay-adda Trademark Africa iyo Swedish government oo fanka bixiyey in ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin inay ka qayb qaataan kaabayaasheeda degmada. I'm delighted to be here today to mark the groundbreaking ceremony of the Tog-Wajale border bridge, together with our valued partners and stakeholders. This occasion marks an important milestone in our shared efforts to strengthen regional connectivity and unlock the full potential of trade along the Berbera corridor. It goes without saying that trade along this corridor cannot thrive if the movement of goods across this border. Sweden has long recognized the importance of trade facilitation. And Swedish initiatives for facilitating trade in Africa oo macnihiisu yahay fudaydinta ganacsiga ee Africa oo ay u qoondeeyeen 17 milyan oo dollar oo laga kala fulinayo 3 corridor oo Africa ku yaala oo koobaad la yiraahdo Berbera corridor la yiraahdo oo isku xidha Soomaaliya iyo Itoobiya oo kan ah aynu maanta joogno wasaaradda waxaan aaminsanahay runtii inay qayb weyn ka qaadan doonto isu socodka ganacsiga isu gudbinta badeecadaha iyo socodka dadka laftooda inay qayb lixaad ka qaadan doonto waxaan aaminsanahay inay muhiim u tahay in Soomaaliland ay noqoto gateway Itoobiya iyo wadamada kaleba ay u noqon karto in bridge-kani uu qayb lixaad ka qaato qorshaha Berbera corridor inuu qayb lixaad ka qaadan doono runtii
annagoo uga mahadnaqayna dowladda Ethiopia dadaalada iyo iskaashiga joogtada ah ee aanu ka leenahay labada dal bay ka dhaxayso ama ay ka dhaxeeyeen xidhiidh dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid dhinac walba aynu xidhiidh ka leenahay haddana tana waxay tahay xoojinayno xidhiidhkeennii hore runtii sharaf gaaray noo tahay marka bridge-kani wuxuu runtii inoo suuro gelinayaa isku xidhka labada dal wuxuu suuro gelinayaa oo fududeynayaa dhinaca ganacsiga bulshada iyo walaaleynta had iyo jeer labada guriyo jaarkii way iska xigaan labada kale labada dal ee jaarka ahina way iska xigaan labada dal ee kale iyagoo iska kaashanaya dhinaca horumarka dhinaca hadday noqoto iminka berbera ka hor doorasho kale haddii la hirgeliyo waxyaabaha badan ay u baahan tahay bulshada Ethiopia iyo bulshada Somalilandba waxay ka helaysaa ganacsigooda kor u kacaya dadkooduna uu kabcaya magacooduna kor buu u kacaya dhaqaalunbaa dadka kor u qaada magacana dhaqaalunbaa sheega marka runtii aad baan u dhiirigelinayaa waxaanan ku ammaanayaa hay'adaha inta badan kusoo jiray iyo dowladaha hadday tahay Swedish hadday tahay hay'adda kale Trademark intaba aad iyo aad baan uga hambaliyeynayaa muddada faraha badan ay usoo dhabaaladeegeen runtii ee xoogga ay saareen si guud waxaa farxadii ah inaan kasoo qayb galo xalfadda quruxda badan lagu dhagax dhigayo buundadan oo aada muhiim u ah wax badanna soo kordhinayso kagana duwan buundooyinka kale muxuu ahaa shaqooyinkooda la qabanayo waxay kaga duwan tahay dhowr arrimood isku xidhka bulshada iyo dhaqaalaha ay soo kordhinayso iyo ganacsiga inta badan jidadku waxay ahmiyad weyn u leeyihiin isku socodka bulshada iyo fudaydinta howlaha nolosha iyo muxuu ahaa hay'adda Trademark sidoo kale consultantiyadii ka qayb qaatay shirkadii dabagelaysay Moon iyo muxuu ahaa ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ambassadorka Sweden oo mashruucan fandhigareeyay madaxda dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi aniguna aan ahay wasiirkiisa gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa naga go-an berbera corridor in uu noqdo mid ujeedooyinkii iyo ahdaaftii guud ee weyneyd ayna ka lahayn gaadha aynu ku gaadhno insha allahu tacaala Ethiopia iyo Somaliland waxay leeyihiin xuduudka ugu dheer ayay leeyihiin oo aanay koobi karin hal wado aanay isku xidhi karin Ethiopia waxaan filayaa dalalka ay xuduud la leedahay dalka ugu ballaaran ama haddaanu ka koowaad noqonin inuu ka labaad noqonayo Somaliland inay noqonayso ay leeyihiin xuduudka ugu ballaaran ay leeyihiin xuduudka ballaarani waxa uu keenayaa in dadka reer Somaliland iyo dadka reer Ethiopia oo ah dad dhaqan dhaqaale wax waliba ay ka dhaxeeyaan in ay helaan isu socod ka ballaaran hal wado ayaynu insha allahu tacaala u baahannahay waanaynu gaadhi doonaa waxaan mar walba u taagannahay annagu haddaan nahay reer Somaliland waxaan u dhiirigelinaa ganacsiga waxaa naga go-an ganacsiga inuu si fudud uu isaga gudbo waxaa kaloo aanu haynaa oo ay Ethiopiana u baahan tahay waa marsada dekada berbera Ethiopia waxay u baahan tahay wax ka badan hal dekad bay u baahan tahay waxaan rabaa inaan xuso uun kaliya in bridge-kani maanta sida la sheegay waa bridge dherarkiisu uu kooban yahay laakiin ilaa 6 meeloo lahayd oo la marayana leh iyo meesha dadku marayeen iyo gaadiidku marayeen laakiin muhiimad gaar uu leeyahay oo ah in uu sidii la wada sheegay xoojinayo ganacsiga waayo marinkan wajaale tago jaale waa marin ganacsi weeyaan waxa lagu yaqaano marka tago jaale la yiraahdo waa marin ganacsi weeye marka ganacsigaas
wax weyn ka qabanaya. gaadiid aad u badan baa isticmaala wuxuuna sahlayaa oo kale ka soo koobcinta ganacsiga in ganacsiga laftiisu uu formalize noqdo oo xoogaa la soo xirigeliyo si badeecadihii isu dhaafayay isuga gooshayay Somaliland iyo dowladda deegaanka Soomaalida oo hadda meeshii dalka Itoobiya laga galay ay noqdaan ganacsi la og yahay la cashuuri karo dakhli dowladda ka soo gali karo shaqada abuuraya la garanayo oo shacabkii shaqo abuur u sameynaya marka ganacsigaas ayuu ka dhigaa mid la soo xirigeliyay oo formal marka waxaan isleeyahay taanu qayb weyn buu ka qaadan karaa